بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waa telefishinka Universal Studio ku yaala London. daawadayaal bisha Ramadaan ee barakeysan waa 23 hijriyo 1447 March waa bisha saddexaad ayaa waxay tahay 12 2026 wararka caalamka telefishinka Universal iyo iminka qodobada dunida ugu waaweyn la hadal hayo iyo wariye Maxamed Axmed Xaaji Maxamed Cagmadhiga. wararka ka imanaya gacanku waxay sheegayaan weeraradu inay si aad isu dhaafayaan haddii ay yihiin kuwa Israa'iil iyo Ameerikaanka ee lagu hayo dhinaca Iran lafteedu aad u weerartay wadamada gacanka iyo dalka Israa'iil iyo waliba maraakiibta hooganaysa dhinaca badda ee laga xiray meeshii ay markaa mari jireen waa maraakiibtii ganacsiga gaar ahaan dhinaca shidaalka. wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan Iran inay sheegatay inay Tel Aviv aad u garaacday goobo ku yaal oo ah xarun weyn oo ay leeyihiin qoliyaha amniga ee Shin Bet lagu magacaabay ee gudaha dalka Israa'iil iyo laba saldhig oo military iyo waliba meel ka baxsan Tel Aviv oo la sheegay iyaduna inay gubanayso. wararku waxay sheegayaan in kale la weeraray dhowr wadan oo ku yaala wadamada gacanka sida dalka Qatar, dalka Kuwait iyo waliba dalka Istaga Imaaraadka Carabta oo si aad weerarku dhinaca Dubai oo ugu dhacay habeenkii xalay ahaa. waxaa kale oo weerarka lagu qaaday 3 markab oo laba kamid ay joogeen aaga dhinaca Ciraaq mid kamid ahina uu joogay aaga marinka Hormuz oo iyaga laftoodana damage wax la yiraahdo afka qalaad amaba dhibaato loo geystay taasoo aagan taalo. laakiin wararku waxay sheegayaan inaan la magac dhabin cidda ka dambeeyda weerarka oo la yiri gantaaladaas heybtooda iyo meesha laga soo ganay intaba lama yaqaano. arrimaha kale ee cakiran ee ku saabsan dagaalkan waxa ka dhashay ayaa waxa kamid ah in sicirka saliidda lagu kala iibsaday dunida uu kor u kacay taasoo iminka halkii fuusto amaba halkii barmiil oo shidaal uu gaaray $100 ka badan halkii dagaalka ka hor uu ahaa 67. qoliyaha iyagu 32 wadan ee ku jira hay'adda lagu magacaabo hay'adda tamarta caalamiga ah ayaa maalintii shalay waxay isku raaceen inay soo bixiyaan kaydka dhinaca shidaalka iyo saliidda taasoo loola jeedo in bal maalmaha soo socda lagu baxsado haddii arinta culayska gacanka dagaalkiisa uu sii socdo. waxay sheegeen 400 milyan oo barmiil ama fuusto inay ogolaadeen laakiin waxa la yiri waxay taraysa male 400 milyan oo fuusto waa 4 maalmood oo kaliya taasoo ka dhigan maalintiiba 100 milyan oo fuusto. arrimahan iminka taagan ee ka taagan guud ahaanba gacanku waxay yihiin kuwo ku faafay marka la fiiriyo meelo badan oo adduunyada kamid ah haddii ay tahay xagga tamarta iyo waliba haddii ay tahay dhinaca amniga. wadamada koonfur bari Asia ayaa la sheegay in ayaga laftoodu xaggii safarada iyo isu tagii ay joojiyeen ama ay hakiyeen. wadamo ay Philippines iyo Thailand iyo kamid yihiin Myanmar iyo waliba Vietnam waxay sameeyeen maalmaha la shaqo tagaya laftooda inay 4 maalmood qaarkood ku soo koobaan iyo safarada oo la yareeyay taasoo loola jeedo tamartii inay yaraatay. haddii arrimahaas ay sii socdaan waxay keeni karaan culays aad u xoog leh. dhinaca kale Ameerika wararka ka imanaya waxay sheegeen in Kongareeska dalka Mareykanka sharci yaqaano ka tirsan laga hor aqriyay maalintii Talaadadii lacagta ku baxday amaba adduunka ku baxay 6 maalmood ee ugu horeysay weerarka lagu qaaday dhinaca Iran ee Ameerikaanka iyo Israa'iil ay qaadeen. Ameerika waxa uga baxday 6 maalmood sida la sheegay 11.3 bilyan oo ah lacagta dollarka Mareykanka taasoo la sheegay inay tahay mid aan lagu sii talagelin inay ku baxdo. laakiinse sharci yaqaanada qaarkood ayaa waxa ay sheegayaan in aqalka cad laga rabo inay codsadaan lacag dheeraada haddii dagaalku uu sii soconayo iyadoo la yiri lacagtaas intee la ekaan kartaa oo qaarkood sharci yaqaanadu ay sheegeen ilaa 50 bilyan oo dollar qaarkoodna ay yiraahdeen waxa dhici karta inay yaraato laakiin waxay ku xiran tahay had walba culayska iyo dagaalku sida uu noqdo. madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald J. Trump ayaa mar la weydiiyay arrimaha dagaalka siyaabo kala duwan uga hadlay isagoo aan hubin xaaladdu sida ay noqonayso oo marna uu ku goodinayo dagaalku degdeg ayuu u dhamaanayaa ee Israa'iil iyo Ameerika way guuleysanayaan marna uu leeyahay lama oga dagaalka laakiin uu ku celceliyo haddana sicirka saliidda lagu kala iibsadaahi hoos ayuu degdeg ugu dhacayaa laakiin arrintaas mid muuqata iminka maaha oo gabaabsi ayay noqonaysaa. dhinaca kalena waaba sii kacaysaa marka la fiiriyo qaabka iyo sida wax lagu kala iibsado mar haddaan soo saar aanu jirin meel la marayana aanay jirin saliidii adduunka markaas lagu kala iibsan jiray. arrimahaasi oo dhani waa arrimo laalan oo cakiran oo u baahan sidii wax looga qaban lahaa ama loo xalin lahaa. dad badan ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen maalmihii ugu dambeeyay dagaalka marka la fiiriyo Iran gudaheeda iyo waliba dalka Lebanon ilaa 2,000 ayaa lagu qiyaasayaa weerarada Ameerikaanka iyo Israa'iil ay qaadeen. dhinaca kale waxaa la sheegay hay'adda UNICEF ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ugu qaabilsan arrimaha caruurta waxay tiri 1,100 caruur ayaa ku dhintay weerarkaas oo toddobaadkii saddexaad iminka u muuqda inuu madaxa la galayo.
arrimo badan ayaa jiro la isku eedeynayo. dowladda Iran waxay sheegtay inay ku eedeynayso Israa'iil iyo weliba Amerika inay si gaar ah u bartilmaameedsanayaan isbitaalada iyo iskuulada, taasoo qawaaniinta caalamiga aan qabin si kastoo loo dagaalamayo. laakiin sitaa bedelkeeda Iran waxay sheegtay inay kaga jawaabtay iyadoo saldhigyada militariga ee dhinaca gudaha Israa'iil iyo weliba dhinaca kale ee gacanka inay aad u ugaarsadeen oo ay u arkaan inay guulo ka gaarayaan mar haddii iyagaba la weeraray iyaguna waxba aanay markaa dhowranaynin. waxay u muuqataa Iran dowlad isku tashatay oo u aragtay inay wax ka qaban karto gardarro kasta oo ka timaada dhinaca dibadda. Amerika iyo Israa'iil iyo xulafadoodana maanta ay u muuqato siday maleynayeen si ka duwan inay markaa cagaha ay la galeen. dhinaca kale eed ayaa jirta ay dadka UK qaarkood u soo jeedinayaan xukuumadooda oo ah in saldhig ay iska leedahay dowladda UK ay adeegsadeen diyaaradaha militariga ee wadanka Mareykanka oo weliba Al Jazeera koox ka tirsan ay sheegtay in ayagu film ka duubeen bambooyin aad u fara badan diyaarado in lagu gurayo Amerikaanku uu leeyahay oo laga qaadayay saldhig ay UK ku leedahay dhinaca gobolkaas laakiin aan la magacaabin, balse saldhig ayaa jira maalmihii dambe la magacaabayay oo UK u ogolaatay inay Amerika adeegsato oo ku yaala halka lagu magacaabo Cyprus. wixii warara ee ku soo kordhay guud ahaanba arrimaha cakiranaya xaaladda aan wanaagsanayn ee weerarka Israa'iil iyo Amerika ee aan laga fiirsan ee lagu qaaday Iran iyo jawaabaha Iran ay bixinayso iyo xaaladda gacanka oo murugsan. wararkayaga dambe biidnillaahi kariim. halkaad warkaa kala socotaan waa telefishinka Universal Studio ku yaala magaalada London. wadamada reer Yurub oo weliba UK-na ay kamid tahay ayaa ku eedeynaya dowladda Israa'iil dhibka ay ka wado daanta galbeed iyo weliba bariga Jerusalem oo ah inay dhul badan burburinayso iyadoo deegaano cusub ka samaysanayso oo aan sharci ahayn. UK iyo weliba Yurub waxay sheegeen in looga fadhiyo dowladda Israa'iil ee maamulka Tel Aviv arrintaas in wax laga qabto mar haddii qolyaha Jewishka ee sida gardarrada hore ugu deganaa aagaasi ay dadka iyagu dhibaateynayaan. wararkii ugu dambeeyay waxay sheegeen ilaa 11 maalmood oo la soo dhaafay 6 Falastiini inay dileen qolyahan Jewishka ee ayaga sida gardarrada meesha loo dejiyay tan iyo 1967 oo ah xilligii dagaalkii Carabta iyo weliba wadankaasi Israa'iil. militariga wadanka Israa'iil waxay sheegeen inay jawaab ka bixin doonaan codsiga iyo eedda ka imanaya midowga Yurub iyo weliba UK oo ay sheegeen in la ganaaxi doono sharcigana la horkeeni doono kuwa Jewishka ah ee iyagu degan daanta galbeed iyo bariga Jerusalem ee dhibaateynaya dadka reer Falastiin aan waxba galabsan. hadalkaas lama hubo inuu yahay mid la meel marin doono balse la eegi doono maalmaha soo socda marka la fiiriyo. dad fara badan oo Falastiiniyiin ayaa ku baahsan wadamada gobolka oo qaxootiya marka la fiiriyo dhulkoodii oo hore loo boobay isla markaasina laga sameeyay 160 degaan oo ay degan yihiin 700 oo kun oo Jewish oo meelo kala duwan oo dunida laga keenay oo si sharci darro ah qawaaniinta adduunkana aan qabin marka iyagu ugu nool daanta galbeed iyo bariga Jerusalem. maalmihii ugu dambeeyay olole ayay wadeen dowladda Israa'iil oo ah inay buuxiyaan meelo badan oo iminka Falastiiniintu ay iska leedahay ayagoo raba inay ka hortagaan hadiiba ay dhacayso dal Falastiin ay iska leedahay in la aqoonsado oo ay markaa isbarbar yaalaan dowlad la aqoonsan yahay Falastiin iyo dowlad la aqoonsan yahay ee Israa'iil. laakiin maanta arrintaasi aanay jirinin. wixii warar ee ku soo kordha dhibaatada Jewishka sida gardarrada ku degan daanta galbeed iyo bariga Jerusalem waxaynu ku eegi doonaa wararkayga soo socda biidnillaahi kariim. halkaad warkaas sida tooska weli ugala socotaan waa telefishinka Universal Studio ku yaala magaalada London. wararka ka imanaya dhinaca South Africa waxay shaaca ka qaadeen safiirka cusub ama danjiraha cusub ee Amerikaanka ka fadhiya South Africa oo lagu magacaabo Leo Prenti Bozell in looga yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi South Africa ee magaalada Pretoria si uu uga jawaabo hadallo qadafa oo ay u arkaan in aanay diblomaasiyadda waafaqsanayn oo ninka cusub ee safiirka Mareykanku uu ka dhawaajiyay isagoo shir ka qaybgelaya qolyo ganacsato ay ku lahaayeen magaalo xeebeed ku taala wadankaasi South Africa. waqtiyadii ugu dambeeyay xiriirka u dhaxeeya Amerikaanka iyo South Africa ma aanu wanaagsanayn. ninkan cusub ee safiirka Amerikaanku hadallada ay dhibsadeen qolyaha South Africa waxa uu yahay inuu si khalada uga been sheegay in dadka madowga ah ay dhibaateeyeen iyo maamulka South Africa dadka cadaanka ee laga tira badan yahay, taasoo ay u arkeen qolyaha iyagu Pretoria ee wadanka South Africa inay tahay arrin gardarra. laakiin markii dambe la sheegay Leo Prenti Bozell inuu garowsaday inuu hadallo khalada ku hadlay hadduu yahay safiirka cusub ee Amerikaanka kadibna uu raaligelin ka bixiyay sida hadalka loo dhigay. labada dal ee South Africa iyo Mareykanku iskuma fiicna tan iyo intii weerarka lagu qaaday magaalada Gaza oo dowladda South Africa ay u gudbisay maxkamadda cadaaladda dunida arrin ku saabsan dacwad ka dhana Israa'iil oo xasuuq iyo ba'yo ka geysatay dhinaca Gaza. Amerikaanku arrintaa ma aanu jeclaysan wixii markaa ka dambeeyana
ninka lagu magacaabo Donald J Trump iskuma aanay fiicnayn Ramaphosa oo ah madaxweynaha wadanka South Africa, laakiin haddana uma aanay jixin kadibna culays xoog leh ayaa yimid iyo ismaandhaaf ku saabsan xagga ganacsiga iyo weliba canshuuraha, laakiin aan weli arintaasi aan loo saldhigin, laakiin iminka arintan kale ayba timidba. Horey ayaa safiirkii u fadhiyay South Africa magaalada Washington looga soo bixiyay dalkaasi kadib markii uu ka faalooday arrimo ku saabsan oo ka soo horjeeda ama ka dhana siyaasadda Ameerikaanka aqalka cad iyo Trump, taasoo ninkaas lagu soo celiyay wadanka South Africa. Ninkan laftiisa South Africana Ameerikaanka aanay safiiri muddo u fadhin, laakiin qofku simaha uu u fadhiyay, laakiin iminka shakhsi cusub ay markaas ay soo magacowdeen. wararka ka imanaya wadamada Australia iyo Indonesia waxay shaaca ka qaadeen labada dalba inay sheegeen inay iska kaashanayaan waxay ugu yeereen arrimaha militariga iyo gaashaandhigga. waxaa kulmay wasiirada gaashaandhigga Indonesia iyo weliba Australia oo horena ay u kulmeen, iminkana ay mar kale kulmeen, iyagoo sheegay inay tababaro military wada samaysan doonaan, kadibna Australia iyo Indonesia ay la sii ballaarin doonaan arrimaha dhinaca gaashaandhigga iyo iskaashiga oo ay la sii kaashan doonaan halka lagu magacaabo Papua New Guinea iyo weliba wadanka Japan. arrinkan waxaa ka hadlay wasiirka gaashaandhigga Indonesia oo sheegay in laga maarmaan tahay in la dardargeliyo guud ahaanba aagga iyo heshiiska dhinaca gaashaandhigga. sidaas oo kale waxaa isaguna hadlay wasiirka gaashaandhigga ee dalka Australia oo lagu magacaabo Richard Marles oo isna yiri waan bogaadinayaa xiriirka wacan ee dhinaca gaashaandhigga ee Indonesia iyo weliba dalka Australia. wadanka Australia waa wadan aad u ballaaran qaarad ahaanna magacaas leh marka la fiiriyo. Indonesiana waa dalka ugu badan ee muslimiinta adduunku ay ka soo jeedaan amaba ay u dhasheen. Japan iyo Papua New Guinea, Australia iyo New Zealand iyo Australia iyo Indonesia waxay ku ballameen inay xoojiyaan dhinacooda militariga iyo Indo-Pacific aagga lagu magacaabo amnigiisa in markaas laga wada shaqeeyo. arrinta Australia iyo Indonesia waxay salka ku haysaa iyadoo la sii tixraacay ama qaadayay in kal hore ay kulmeen madaxweynaha wadankaasi Indonesia Prabowo Subianto iyo ra'iisul wasaaraha dalka Australia Anthony Albanese oo ay ka wada hadleen xiriirka labada dal oo isku aag ku yaala marka la fiiriyo inay sii adkeeyaan oo ay markaas ay sii xoojiyaan. marka daba la fiiriyo guud ahaanba arrimaha ugu dambeeyay ee dunida waxaa si aad loo hadalhayaa nin isaga la yiri waa isdilay oo lagu magacaabo Jeffrey Epstein oo xabsi ku yeelay New York lagu xiray 2008 kadib markii la sheegay falfalxumo iyo faraxumeyn joogta iyo iibinta gabdhaha yaryar ee aan qaan gaarin dalka Mareykanka muddo dheer isagoo ah nin lacag leeyahay. waxaa arrinkaasi ku lug leh ragga ugu magaca weyn Ameerikaanka dhinaca siyaasadda iyo ragga jeebka buuran ee bilyaneerada ee dalka Mareykanka, iyadoo arrimahaasi ay soo tarayeen waqtiyo dambe balse aad loo diidanaa dokumentiga iyo xogta ku saabsan dacwadda ninkaas iyo dhibka uu geystay in la soo bandhigo, laakiin aqritaanka ay noqotay Kongareeska Mareykanku inuu go'aan ku gaaray arrinta in la baaro. ragga farta lagu godayo ee sida aadka ninkaasi ula qaraaban jiray ee gabdhaha dhibaateyn jiray waxaa kamid ah madaxweynaha iminka ee wadanka Mareykanka Donald J Trump iyo rag kale oo siyaasiyiin ah oo horey loo magac dhabay. iminka waxaa jira dad iyagu kamid ah dadkii la dhibaateeyay ama la gumaaday ama looga faa'iideystay yaraanta iyo in lacag la siiyo oo qaarkood ay nool yihiin kuwa dhintay mooyaane, kuwaasoo marka ka dambaysa la wareysanayo hadday tahay warbaahinta dhinaca jaraa'idka iyo weliba telefishinada iyo weliba idaacadaha. waxaa hadda 24 saac ugu dambeeyay hadlay laba hablood oo u dhashay dalka Brazil oo mid lagu magacaabo Glozia Paquete tan kalena lagu magacaabo Ana. labada gabdhood iyagoo soo koraya oo 14 jir ah ayaa lagula kulmay halka lagu magacaabo São Paulo oo ah Brazil oo Ana lagula kulmay iyo gabadha kale oo iyadana deegaankeeda dhinaca koonfureed ee dalka Brazil lagula kulmay. waxaa la kulmay nin la sheegay inuu isdilay oo isagu ahaa nin sheegtay inuu yahay dhinaca modelinka amaba dadka matala inay dharka iyo waxyaabaha kale ganacsiga xayeysiiyaan. Brunel ayaa lagu magacaabi jiray waxaana uu tagi jiray South America wadamada kala duwan ee ku yaala halka uu ka soo ururin jiray gabdhaha aan qaan gaarin, kadib gabdhaha loo sheegi jiray inay wax matali doonaan fiisada si degdeg lagu siin doono America iyo New Yorkna ay tagi doonaan. gabadhan lagu magacaabo Calosia waxay sheegtay inay aad u daayareed oo ninkaasi u arkay kadibna uu sheegay in ay ka qayb gasho tartan ka dhici doona dalka Ecuador kadibna la geyn doono New York ee dalka Mareykanka. hooyadeed ayay u sheegtay Calosia arrintaasi oo waxay tiri hooyo ninkaas ayaa ila soo xiriiray sidaas ayaa la dabacsan yahay. hooyadaas oo lagu magacaabo Barbara oo reer Brazil shaki ayay ka muujisay barnaamijka uu ninkani wado oo ah in gabdhaha aan loo wadin inay wax matalaan laakiin loo wado waxa Soomaalidu ay tiraahdo in la dhowdhowaysto ama macnaheedu uu yahay in la faraxumeeyo iyagoo aan qaan gaarin.
taasi waxay sheegtay in gabadha hooyadeed hadalkeedii ay yeeshay oo ay maanta leedahay haddaanan yeeli lahayn hadalka hooyadee Barbara dhib ayaan ku dhici lahaa iyo mashaakil saasoo ay tahay gabadhaas Colosia waa ay ka timid magaaladeedii oo waxa ay tagtay halka lagu magacaabo Ecuador waa dal ku yaala Latin America oo halka gabdhaha lagu ururinayay ninkan hay-adiisa sheeganaya inuu yahay ganacsiga dhinaca modelka Poronel ee la yiri waa isdilay oo markaasi ku ururinayay gabadha waxay sheegtay wax model la yiraahdo inaanay jirin document in loo sameeyay dalku gal si degdeg ah in loogu sameeyay si ay New York u tagto kadibna ujeedka aanu ahaynba in wax la matale ay tahay in la dhibaateeyo jirkeedana markaa laga ganacsado waxa kale oo iyaduna warbaahinta la hadashay gabar kale ee lagu magacaabo Ana oo aad u da'yareed oo deganeed halka lagu magacaabo São Paulo waxay tiri ninkaas ayaa isoo abaaray kadibna yiri aad baad u qurux badan tahay waxaad ka qayb gali doontaa barnaamijka wax matalaada oo lacag badan ayaad heli doontaa laakiin gabadhu waxay sheegtay oo shaki ka muujisay markay aragtay in si aad loo amaanayo bixid wax la yiraahdo aanay jirin waxay tiri hoteelada waaweyn ee quruxda badan ee raaxada ee São Paulo ayaa aniga iyo hablo kale la geyn jiray waxaanan sheegi karaa bay tiri maalinka maanta anigoo aana inaan la kulmay hoteelka dhexdiisa ninka lagu magacaabo Jeffrey Epstein oo anagoo gabdhaha nala hor istaajiyay si uu mid kamid markaas nooga doorto arrimahaasi oo dhani waa arrimo aan ninka kaliya ku koobnayn laakiin rag badan oo siyaasiyiin sare oo Amerikaanana ay ku lug leeyihiin wax nool iyo wax dhintay iyo waliba rag lacag leeyahay oo iyaduna wali uu baaritaankii uu socdo horay qaar kale ayaa u hadlay oo ay kamid ahayd gabar 52 jira oo lagu magacaabo Maria Farmaris oo aanu halkan warka ka deynay oo ka sheekaysay iyadoo 14 jira inuu Jeffrey Epstein oran jiray qoraalada isu galmoodka ii soo qor aan ku soo qoro lacag baan ku siinayaa gabar kasto aad keentidna oo da'yar $200 ayaan ku siinayaa waxaana ay sheegtay inay hablaha geyn jirtay 18 aan gaarin ee gabar kastay geysana ay dhihi jirtay 18 jir ka weyn ayaan ahay dheh kadibna aan 200 qaadan jiray bay tiri dib xoog la ayaa dhacay tiri qaar badan hablaheeni way geeriyoodeen oo waa la dhibaateeyay qaar badanna waa la handaday ama hanjabaad ayaa loo geystay laakiin lama oga arrimaha ninkan Jeffrey Epstein halka ay saldhigi doonaan walow dadka oo darasa arrimaha America iyo guud ahaanba hadalhaynta dacwooyinka noocana in ay sheegayaan sababta keeni kartaba Iran in la weeraro ee Israa'iil iyo America inay tahay dadka mujtamaca adduunka in indhahooda lagu jeediyo gobolka gacanka oo laga jeediyo Jeffrey Epstein iyo dhibka bini'aadanimo ee uu geystay laakiin iyadoo colaaduna ay socoto asaga laftiisina baaritaankiisii in la dardar geliyay oo arintaasi waxba aanay markaasi aanay qarin kareenin wixii warar ay ku soo kordhay guud ahaanba arrimaha cakiran ee dhinaca ceebeynta iyo bini'aadamka dhibka loo geystay iyo dhinaca kale gacanka iyo gulufka colaadeed ee Iran weerarkeeda iyo iyada lafteeda weerarka lagu hayay xaaladaha jiraba wararkayga dambe biidnillaahi kariim maxamed axmed xaaji maxamed cagbadhiga ayaa soo gudbiyay aanu isu ducayno kalama tegin tan iyo kulan dambe biidnillaahi kariim ramadaan mubaarak wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh